waynu iska bilaabaynaa xafladda saan idin sheegay markale aanu mahad celinaya dadweynaha sharafta leh meel kastoo ay iskaga yimaadeenba madaniyo marwooyin runtii waxaynu ku jiraa habeen farxadeed dhammaanteen waxaynu u dabaaldegaynaa dee xafladda sharafta leh iyo guusha ay naga soo gaadhay somaliland aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye taageerayaashiisa iyo ka guddi fulaahaneed iyo dhammaan laamihiisaba halkan waxaanu tahaniyad iyo hambalyo weyn aanu marinaynaa marka hore meel kasta ay joogaan dadweynaha reer somaliland oo runtii si karaamo iyo sharafi ku jirto u qabsaday doorashadii ka dhacday somaliland marka xigta waxaanu halkan guur marinaynaa haddaanu nahay taageerayaasha iyo guddida fulinta iyo laamaha xisbiga kulmiye ee UK ba guusha u soo hoyatay xisbiga kulmiye runtii marka runta laga hadlayo waa guul u soo wada hoyatay dhammaan somaliland waxaan runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaa guusha u soo hoyatay xisbiga kulmiye ay hirgelisay dowladda somaliland uu madaxa ka yahay mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaanu aad iyo aad runtii ugu faraxsannahay inuu maanta ku guuleystay kursiga madaxweynenimada somaliland siyaasiga rogcadaariga ah mujaahidka runtii mujaahidka ruuxdiga runtii waan odhan karaa dalkiisa iyo dadkiisa aan maalin uga bixin mujaahid muuse biixi cabdi muuse sidaad la socotaan runtii waa nin dharaaro badan iyo habeeno badan iyo xilli badan oo adag la soo maray mujaahidka weyn axmed maxamed maxamuud siilaanyo runtii waxaynu ku kalsoonnahay oo dadweynaha reer somaliland meel kastay joogaanba ay ku kalsoon yihiin inuu yahay shakhsi sii wadaya legasiga uu ka tegay mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaanyo waa ruux ka mida dadweynaha reer somaliland waa shakhsi aan habeeniyo maalintoona aan runtii meel uga bixin mar kale anigoo ku hadlaya magaca guddida fulinta laamaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kastay joogaanba waxaanu leenahay dadweynaha reer somaliland hambalyo 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 sidaas lamid iyagana waxaan ugu hambalyeynayaa gudoomiyaasha xisbiyada kale iyo xisbiyada kale iyo gudoomiyaasha xisbiyada kale ee tartanka la galay mujaahid muuse biixi cabdi runtii waxaanu leenahay waa guul dhammaanteen bay noo soo wada hoyatay hambalyo 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 ayaan mar kale leeyahay aynu saaro heesta rimidka calanka somaliland noqoshadiisa Is that
waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo xubin ku hadlaysa laanta north west foosiya caydiid si ay kelmadeeda farxadda iyo bogaanteeda halkan uga tiraado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadkayga sharafta badan leh ee reer Somaliland ama reer Kulmiye. marka hore waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan idin leeyahay ما شاء الله ما شاء الله Kulmiye guul ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما hadda ugu horeysa horta Ilaahay baa leh alxamdulillah. waxaan ku hadla baan ugu ma garanayo farxad ma doosha ma dabayla raacda ay caawa iga tahay aniga ma sha Allah waxaan halkan uga tahniyadeynayaa dhammaan qaranka Somaliland oo guul u soo heetay waxaan leeyahay Somaliland guul ma sha Allah waxa kaloon halkan hambalyo uga darayaa xisbiga Kulmiye guusha Kulmiye keenay Kulmiye guul ma sha Allah mar labaad iyo mar saddexaad ba uu ku soo noqon doonaa saaxadda siyaasadda ma sha Allah waxa kaloo guula xisbiga Kulmiye oon dafraad lahayn sidoo shaxda u dhigay shaxda la isaga badiyaa ma sha Allah wuxuu xisbiga Kulmiye garanayay ama ragoogu garanayeen ama xisbiga Kulmiye garanayay ama mujaahid Muuse Biixi garanayay ilo askari buu haaye heedaha halka difaaca laga qaadayo iyo halka weerarka laga qaadayo iyo halka shaxda la dhigayo uu la dhigay baan ma sha Allah Kulmiye oo dhan baa la dhigay ma sha Allah waxaan leeyahay insha Allah bismillaah kariine madaxweynihii lagu baraaro ee barwaaqa daba socoto in duufaan iyo abaar dalkiisa intuu haysto in kastaba ku dhicin ayaan Ilaahay uga rajaynaynaa. waxa kaloon ku faraxsanahay Somaliland maanta sidii doonaba la isku yar dhuftay in guul ay tahay Somaliland waxa leeyahay cadaween jaban labada xisbiye kalena waxaan leeyahay ee labada musharax kalena waxaan leeyahay guul kol hadii aad hambalyeyseen wixii waad soo raaciseen waxa kaloo idin oranayna ma jirto guusha Somaliland ayay u soo hoyatay way inoo soo wada hoyatay waa guul qiimo leh oo qaayale Muuse Biixina waxaan leeyahay ma sha Allah cadaaladkii ku dhaqma ee dalkiisa dadkiisa ku dhaqa waan ka filayaa oo wada hayde intaana ku darso ma sha Allah dhammaan reer Somaliland guul baan leeyahay shicibka reer Somaliland oo dhan meel kasta hambaliyo u dirayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad bay u mahadsantahay Foosi waa guul baanu leenahay mar kale guul mujaahid Muuse Biixi Cabdi caawa wuxuu madaxweyne u yahay dhammaan intii u codaysay iyo intii ka codaysay runtii waa madaxweyne qaran dhammaan waanu hambalyeynaa mar kale waxaan jecelahay ku soo dhaweeyo mikrofoonka si uu kelmadiisa u yidhaahdo gudoomiyaha bariga London mujaahid Siciid Xaaji Xasan soo dhaweey Siciid. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دمان شرفت هالك عاوز وقتمي هبلو إيو نمان بواد السلام يا رب كلمية وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العاوة وحنا سقول نمي إنه همبلي إنه كوشا حسب كلمية أو معناتها أو كوجلستي اللي كوجلستي دور الشيء تلك سعتي waxaan leeyahay waqti dheer oo soo halganay kadib 7 sanadood baan soo halgamaynay waynu hawl wadnay hawshii dhamaadkii final weyn ku guuleysanay waxaan leeyahay alxamdulillah ma hadaas kale waxaan u mahadnaqayaa intii ka soo shaqeysay intaas soo halgamaysay xisbiga soo waday intii u guureysay intii u kala carrawday intii maalka iyo nafta iyo waqtiga u hurtay waxaan leeyahay maanta waa gaadheen guushii aad doonayseen وحوي ما شاء الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يوم هذا نقينا كل شيء نسيي مدحوينها عصورنا وانهم بلينا Muuse Biixi Cabdi waxaan ka rajayn doonaa inuu halkaa ka sii wado guushii Kulmiye uu gaadhay 2010kii Axmed Silaayo uu soo waday xisbiga Kulmiye saddex goor buu galay doorasho madaxtooyada markii koobaad uu dhacay
labana waynu ku guulaysanay waxa weeye runtii waa arrin taariikhiya aad iyo aad baan u hambaleynayaa musabix iyo reer kulmiye waxa leeyahay waxa weeye maanta waynoo farxad waynoo guul kulley xafladdii weyneydad dabaaldegu waynoo dambaysaado maalmaha soo socdaa la dhigi doonaa tani waa ogeysiis iyo farxad aynu caawa kula farxayno reer kulmiye meel kastay joogaan waxaan kaloo u hambaleynayaa xisbiyada kale qaranka oo iyaguna inoo hambaliyeeyey oo qiray in laga guulaystay waxaan leeyahay idinkuna soo barbaara kulley dee mar un baad ina heli doontaane haddaad noo hambaliyeysteen idinkana kulley waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin dhammaan Soomaaliya oo dhan baa guulaysatay cadowgii dusha naga eegayay baa maanta naxay markaynu heshiinay oo arrinkii lasoo afjaray waxaan leeyahay Somaliland guul kulmiye guul dhammaantiin waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay Siciid iminkana waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo mikrofoonka nin da'yar oo siyaasi ah oo runtii ka mid ah ragga aad iyo aadka oo activiska ah da'diisa in badan uga weyn xisbiga tacab badan geliyey garaad cabdixakiin soo dhow gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye UK Axmed Cabdilaahi xiriiryaha xisbiga UK jaamac cali muuse saaxiibkay yurub qaalib oo ah madaxa safaaradda community reer Somaliland hablaha halkan fadhiya runtii kala qurxa badan leh inamada halkan fadhiya iyaguna Cadaani Ibrahim dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii hadal badani halkan ma yaallo caawa halkan waxaynu u joognaa inuu u nimi inaynu hambalyo u dirno madaxweynaha cusub ee la doortay Somaliland mudane mujaahid Muuse Bixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici intaa kadib dabcan kolley hambalyadu kuma koobnaan filaya labadooda kaliya qaranka Somaliland oo dhan baynu hambalyeenaynaa guul baynu gaarnay aynu 27kii sanadeed Somaliland jirtay wali hore aynu u gaarin runtii waxaan qabaa inay tahay guul ballaaran waxaynu ka gudubnay meel runtii dheer buur dheer oo runtii aynu marinay meel dhex marinay aynu cidhifka ugu sarreeyay runtii istaagnay maanta caawa runtii intiina wararka eegtay dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo maxaan ku dhahdaa dowladaha jaarka ee East Africa ku yaala Kenya Djibouti Ethiopia intuba waxay soo direen hambalyoyin runtii fara badan waxaan qabaa inay tahay guul Somaliland soo yeetay dabcan xisbiyada mucaaradka Somaliland anigu aan ugu horeysiyo saaxiibkay Faysal Cali Waraabe oo runtii siyaasiga kaliya Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe waxa weyn waa siyaasiga runta ee la xajelo Somaliland ugu qabo runtii aynu oran karno waxa weeyaan waa siyaasiga dhabta ee Somaliland dabcan Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo runtii in badan wadnaha farta lagu hayay shacbiga Somaliland ku hayeen bal waxyaalaha uu yeeli doono runtii Cabdiraxmaan maanta shacbiga Somaliland in badan buu ka farxiyay isaguna guushii sidii caadiga ahayd ee hore looga yaqaanay maxaan ku dhahdaayay hogaamiyaha Somaliland qarankan uu leeyahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee hore aynu ogeyn 2003 inuu 8 cod kaga tagay inuu isaguna maanta wadadii kale maray iyo daahir yaalo ka hayeen isaguna 2010kii isaguna maxaan ku dhahdaa aqbalay natiijadii runtii waxaan qabaa inay tahay guul iyo runtii sifo wanaagsan oo Somaliland ay ku caan baxday laakiin xaqiiqdu markay timaado Somaliland waad isu tanaasushaa waan israacda hal meel bana ay martaa runtii waxa runtii aan halmaamay runtii mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hogaamiyaha qarankani uu leeyahay runtii waxa weeyaan hogaamiye mudan in runtii hambalyo kaliya ma loo duceeyo la xasuusnaado qalbiyadeena iyo runtii caloosheen iyo maskaxeenaba runtii aynu ku qorno insha Allah taala wax badan buu dalkan iyo dadkan uu kaga tagayaa madashan lagu tartamayo xisbiyadan maanta tartamaya wadani kamid yahay ayuu kamid yahay maxaan ku dhahdaayay hantidii runtii uu keenay dalkan iyo qarankan uu keenay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu ugu rajaynaynaa 20 cisho u haray inuu caafimaadka u sii siyaadiyo xoogga u sii siyaadiyo mustaqbalkiisa dambe nolol wanaagsan iyo ciise ku noolaado salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweysiyo kelmadiisa uu yidhaahdo siyaasiga da'yar Cadaani soo dhaw Cadaani dhammaantiin mudanayaan iyo marwooyin xubnaha sharafta leh ee caawa munaasabadan qiimaha leh ka soo qayb galay
waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan filayaa habeenkii aynu halkan joognay ee isugu keen dambeysay waxay hayduun goor ay habeenun ka harsantay malaa markii doorashadu dhacaysay fariintii aynu halkan ka diray iyo baaqeennii iyo ducadii iyo arrimihii isbarkanaayo dhan waxaad moodaysaa inaynu sidii alla u aqbalay oo si fiican oo qurux badan ay hawlihii inoogu qabsoomeen aad iyo aad baan u hambalyaynayaa guud ahaan shacabka reer somalilan waxa aan hambalyo kaliya laaba u dirayaa madaxweynaha cusub oo ah noqonaya madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda somalilan yeelato mudane muuse biixi cabdi mudane muuse biixi cabdi wuxuu noqonayaa madaxweynihii shanaad isla markaana madaxweynihii saddexaad oo qof iyo cod ay u soo doorato bulshada reer somalilan waxaan ilaahay uga baryaynaa madaxweynaheenna cusub in uu ku guuleeyo hawsha culus ma garanaysaa loo igmaday inuu ilaahay u fududeeyo xilkaa culusna inuu ilaahay ku asturo ayaynu ilaahay uga baryaynaa madaxweynaha waxaan alla u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala in uu u fududeeyo howlaha u yaala isla mar ahaantaasina uu noqdo kii dalkiisa bashbash iyo badhaadhe gaadhsiiya kuna dhaqa bulshadiisa cadaalad iyo sinaan iyo midnimo markaan intaa ka gudbo waxaan iyagana hambalyo u dirayaa xisbiyadii kale iyo hogaamiyeyaashoodii iyo musharixiintii iyaguna la tartamayey madaxweynaheenna cusub oo iyaguna runtii si fiican oo hufan u tartamay muddadii lagu jiray tartanka iyo ololaha oo siyaasad wanaagsan oo bulshaduna ay nagu majeeranaysay soo bandhigayay muddadii lagu jiray ololaha doorashadiina runtii waxay inoogu dhacday si qurux badan oo aad iyo aad loogu ammaanay somalilan oo maanta ilaa galabta ilaa intii lagu dhawaaqay natiijada doorashada ay hambalyooyinku iska soo daba dhacayeen runtii somaliland walow la yidhaahdo lama aqoonsan haddana dowladaha afrika waxay ka gashay xagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka markay noqoto kaalin aad iyo aad u muuqata oo aan runtii la iska indha tiri karayn maanta Harare waxay looga dabaaldegay Zimbabwe dee magaranaysaa kelidii taliyihii muddada dheer haystay ayay maanta iyaguna iska rideen malaha muddo 30 sano iyo 40 sano ku dhow buu ahaa madaxweyne muddadii 27 sano aynu jirayna Somaliland waxay isu bedelay 5 madaxweyne markaad eegtid mandaqada geeska Afrikana dee waad garan kartaa dalalka inta madaxweyne ay yeesheen dawladihii inaga horeeyay muddada dheer jiray waxaynu maraynaa meel aad iyo aad u qurux badan meel Somaliland loo boqo ma marayso xilligii tartanka lagu jiray baa madaxweynaha cusub ee Somaliland ayaa wuxuu yiri odayaashan tartamaya waa odayaal waaweyn ma aha raggii Somaliland looga baqilaa inay hagardaameeyaan runtii way dhabowday arrintii waa la isu tanaasulay waa la isu duceeyay waa la isu hambalyeeyay maanta madaxweynaha cusubi dhammaanteen waa madaxweynaheena waxaan soo dhaweynaynaa inagoo isku duuban waxaanu u ducaynaa inagoo isku duuban mar labaad waxaan leeyahay allaha kugu asturo xilka cusub allaha kugu quweeyo anana garabkaaga ayaan taaganahay guul Somaliland aan ku soo dhaweeysay kelmadeeda oo tiraasayna Somaliland shacbiga reer Somaliland meel kasta ay joogaanba hambalyaan u dirayaa salaan qiimo laan u dirayaa waa guul Somaliland soo hoyatay only Muuse Biixi Cabdi ma badin reer Somaliland dhan baa badiyay waxaan ku hambaleynayaa salaanta islaamka salaan qaaliyaan ku halbadnaynaa ducaan u diraynaa Muuse Biixi waxa sugayso wadada dheer lahayn u dib yareeyo laakiin imika waxaan Google gareynayay numberka shanaad bay ugu soo noqnoqonayay 5 cishe dambe numberka shanaad muxuu ka dhigay madaxweynaha shanaad ee Muuse magaciisu waa 5 aabihii waa 5 naftiisu waa 5 madaxweynihii shanaad buu yahay really waa founding father of America madaxweynaha shanaad ee Mareykanku ahaa true story waxa ku qoran qofka numberka shanaad haysta waa qof doonaya isbedel waa qof doonaya cimri dharar iyo caafimaad iyo wadankiisa oo isbedela oo si fiican isku bedela marka already numberkan shanaad ee ku soo noqnoqday waa wixii laga rabay Somaliland isbedelkeega dhaqaalaheega iyo nolosheeda anu wan kaliyaatan reer Somaliland oo wajijida Ilaahay u soo jididay u soo rogaya please Soomaaliya inaga daaya maalin dambe inuu hadal qaadin because inagu isbedelnay khayrkeena ay noo batay Soomaaliya dambe ma jirto
one thing oo kale mid kale ku daraya wadankii markaynu ahayn dad Soomaaliyeed aan isku ahayn waxa la isku kala oran jiray Somali Republic xagaasina Soomaalida ka soo galayna manhiin baday Soomaali ma ka tagay ayagu waxay noqdeen Soomaaliya inaguna Somaliland baynu noqonnay marka orid waan kala soconnay dadka reer Somaliland Soomaaliya dambayaan la hadal qaadin madaxweynaha isbedelkaana yimiday Somaliland aqoonsi kaman maqna waxa ka maqan inay noqono wadannada UN calanka geeya de facto state wadankan Ingiriiska dhaqaale waan la qaybsan karnaa dunida waan la qaybsan karnaa wax badan waan la qaybsan karnaa aqoonsi inaga maqan Somaliland ma jirto waxaan nahay de facto state kelmadda aqoonsi baan u baahanahay nin dambo abwaano qorma arka maqli karo ma maqli karo mana maqli karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad bay u mahadsantahay Zainab waxaan jecelahay inaan u yeedhan iminkana Caasha Sarene oo ah xubin runtii aad u firfircoon السلام عليكم دمان وحن سلام يا هرتا مرتي شرفتا هلكن joogta caawa isugu timi inay u muujiyaan maxaa la yiraahdaa shucuurtooda ka turjuma maanta madaxweynaha aan u hambalyeynayno oo yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeyaan waa guul baad gaadhay adiga kaliya maad gaadhin waxa gaadhay Somaliland oo dhan waxaan u hambaleynayaa kale musharaxiintii kula sharaxnaa oo sida wanaagsan iyagoo uga baxay xilkoodii uuna hambalyeeyay madaxtooyada iyo madaxweynaha u hambalyeeyay anigoo ka socda ururka mideynta maakhir waxaan leeyahay ballanqaadyadii aad ballan qaaday ma sha Allah markaad hadaftimo tagtay waxaan jeclahay in hadii Ilaahay yiraahdo ay suurtagalaan waana ka muuqataa qof ka soo baxaya oo oofinaya wacadka qaaday ma sha Allah hambaliyo Allah waxaan jecelahay mikrofoonka ku soo dhaweeyo Yurub Qaalib oo inagala joogta safaaradda Somaliland ama Somaliland Mission soo dhaweeyo Yurub السلام عليكم aniguna aad iyo aad baan u faraxsanahay sida dadka oo dhamiba ay u faraxsan yihiin waxaan ku faraxsanahay in ay doorashadii soo gabagabowday si qurux badan u dhacday waxaan ku faraxsanahay in Somaliland caawa la isu hambalyeeyay waxaan u hambalyeynayaa dhammaan xisbiyada qaranka ee ka qayb qaatay doorashadaas inta guuleysatay iyo inta guul dareysatayba inta guul dareysatay waa casharay ka barteen guul darrada laftarkeedu waxay ka mid tahay guusha marka waa la wada guuleystay hambalyo dhammaantiin waxaan runtii tacsi u dirayaa dadkii ay maalintooda noqotay ee isjiirkii iyo loolankii siyaasadeed wax ku gaadheen iyo intii ku dhimatay inta dhakhtarada ku jirtana waxaan rajaynayaa Ilaahay caafimaad siiyo umalayn maayo in loo bareeray inay inta inaga baxday runtii ay inaga baxdo saacad bay naftu leedahay saacadooday noqotay cidii Ilaahay qoray bay ku baxeen Ilaahay naxariistina uga baryayaa inta jiiftan in Ilaahay caafimaad siiyo ayaan rajaynayaa waxaan kaloo Ilaahay ka rajaynayaa inaanay taasoo kale maalin dambe inagu soo noqon oo aynaan farxad iyo murugo mar wada qaybsanin qof kaliya Somaliland ka dhintaa in uma baahnin waxaynu u baahanay farxadeena inaynu markeeda qaadano murugadeena inaynu markeeda wada qaadano taasina waa taas Ilaahay baa keenay Ilaahay baanu muxuu ahaayay inuu samriyo iimaan umada ka siiyo runtii aan rajaynayaa dad baa ku farxay runtii dad baad moodaysay inay iyagoon u jeedin inay dhacayso si aan bareer ahayn waxaan u sameeyay dadkaasna waxaan rajaynayaa in ay runtii ka waantoobaan waxyaabaha nafta galaafanaya marka ay iyagu qof naftiisa marka ay qof banaadana ama kursi oo kale lagu tartamayo inuu qofka ka qaalisan marka inay dadkaasina ka waantoobaan waxaan runtii anigoo caawa ku hadlaya magaca Somaliland community Somaliland ee UK ka codsanaya qurba joogu inay samafalka Somaliland ka shaqeeyaan inaanay xumafalka Somaliland ka shaqeynin arrinkaas waan codsanaya arrinka aad baan u codsanayaa intii doorashadaasi socotay waan eegayay runtii cimri badan baa ay kordhay waan maqli jiray dadka Afrikaanka marka ay wax bartaan dibadda tagaan dalkooda kharibaad bay kula soo noqdaan laakiin hore umaan marxaatiga hore umaan furin caawa waan furaya
fadlakum min fadlakum tiinana u tudha ta dadka halkaa joogana u tudha arrinkaas aynu ka waantowno muxuu ahaay reer somalilan hambalyaan u dirayaa si qurux badan bay waajibkoodii qaran u guteen siyaasiyiintana waxaan rajaynaynaa inay iyaga laftarkoodu aanay raajinin ee ay bartaan guuldarradu inay guusha ka mid tahay la isuna hambalyeeyo iyadoo reer somalilan kolleyba aanay kala tegayno taariikhdeenna aanay ku jirin inagoo wax ku kala tagnay laakiinse waxaad kolleyba yeeli doontid hore inaad isaga yeeshaa way qurux badan tahay waxbaynu ku seefgarayn lahayn warwar badan baa ka jiray halka kan maalmihiina soo maray runtii warwar badan baa jiray su-aalo badan baa la isweydiinayey tuhun badan baa jiray waxaan caawa aada ugu faraxsanahay inuu guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah cabdilaahi ciro uu si qurux badan runtii go-aan cad u gaadhay oo uu nagaga farxiyey ilaahay adigana ha kaa farxiyaanu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo maamo maryan oo runtii markii hore way ka cudur daartay mikrofoonka soo dhawow mujaahid maryan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان مرتي شرف كعاوة إرير كل مية هل كان عاوة كوكولنسن شعب كالرئيسر مالان ميل كست إيجوغان أدونكا أما قدها ها أهاتو أما دبدها أهاتو وحان كو سلام يا قول كإسلامك وإلهي نفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo sharaf ii tahay aad iyo farxad weyn ii tahay inaan halkan caawa ka hambalyeeyo shacabka aan aad u jecelahay ee aan ilaa 48 sanabo aan geeskooda taagnahay aan la halgamayay inay maanta guusha heleen oo maanta muujiyeen caalamkoo dhan inay yihiin dad maaragtay nabadda iyo nolosha iyo xasiloonida iyo xilkasnimada iyo dhowrista diinta dad aad ugu dheeraaday siiba shacabka somalilan 700 kun oo u soo istaagtay inay safka galaan 4 habeennimo oy halkaa dhaxanta ku disho oy gaajada ku disho oo kii afmiishaara u soo istaago yidhaa lacaga isiira iivooda ay tuug ku hayeen dhagaxin la dacaayay shacabka somalilan ayaa soo hoyay guusha maanta ay ku naaloonayso dowladda somalilan shacabka somalilan ummadda somalilan waxaan ilaahay uga baryayaa towbad iyo towfiiq nasteexo cadaalad diin dalka iyo dadkaba inay ilaahay ku waariyo gabar hadda iga horreysay waxay tiri somaliland is de facto independent anna waxaan ugu daraa somaliland is de jure not only de facto way tahay laakiin waxaa u dhiman sharcigii caalamka ay siidku heli laheeday anna waa u hanay caawada maadaama ay somaliland ay muujisay karateria aanan africana qabin asiana qabin dalalka maaragtay oo galbeedka xataa ayna qabi karin marka maadaama ay requirementskii maanta oofisay aniga waxaan ugu daray de facto and de jure inay tahay maanta dowlad qaran madax bannaan oo nabad iyo nolol ku tillaabay waxaan halkan hambalyo uga dirayaa guusha soo hoyatay waa guul la wada leeyahay qofay gaar u tahay ma laha kii wax doortay iyo kii wax maaragtay mucaarad ahaay kulli waa dad maaragtay maanta hal mowqif ka dhexeeyo hal loogo ka dhexeeyo hal ka dhexayso qarannimada somalilan dhowritaankeeda jiritaankeeda ilaalinteeda marka hambalyaan u dirayaa madaxweynaha cusub wiilkayga walaalkay saaxiibkay muxuu ahay maxay kolleegayga waaye birzamaad muuse biixi cabdi inuu maanta asaga iyo xaasaskiisa iyo qoyskiisa oo dhan inay maanta guusha asaga u soo hoyatay waxaana aaminsanahay oo aan qiri karaa inuu ka soo bixi doono xilka hase yeeshee 2 ragcadood baan ku dukaday nabadda somaliland maanta aanan dhiig ka daadanin intii daadatayna allah u naxariisto waqtigoodaa galay laakiin markii overall loo fiiriyo waxaan u dukaday salaatu shukri nabaddaa maanta caawa
afarta koone adduunka looga dabaaldegaa madaxda adduunkana ay u hanaynayaan waxaan halkaa aan ilaahay uga baryaa muuse inuu noqdo hogaamiye diinta ilaaliyo dadkiisa ilaaliyo dalkiisa ilaaliyo cadaalad ku dhaqo ayaan horta ilaahay uga baryayaa ummadda Somaliland oo maanta abaar iyo dhibaatooyin iyo aqoonsi la'aan iyo macaawino la'aan weyn ayna haysanin warshadeyn haysanin inuu dhaqaalaha ka dhiso inuu beeraha u dhiso inuu siyaasadda dhiso inuu u soo hoyiyo guul not only this next coming 5 years laakiin waxaan leenahay 5 kalena ku darso 10 sano halkaa joog oo aan aad iyo aad u ammaanaya wadaninimadiisa aftahannimadiisa codkarnimadiisa daacadnimadiisa Faysal Cali Waraabe waxaad ku fiicnaad inaad noqoto hogaamiyaha labaad ee xisbiga kulmiye ayaad ku fiicnaad magarata aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa maadaamaan aadna u aqaano yacni waxaan ilaahay uga baryaa isaga iyo reerkiisa inuu nabad iyo nolol ku waaro aad iyo aad aan u faraxsannahay waxaan idinka codsanayaa inaad xamdi naqa iyo shukri naqa aad badisaan oo ilaahay loo dhowaado oo diinta islaamka la weyneeyo oo la darajeeyo ummadaana ilaahay maanta u nasteexay dhibaato la'aan 700,000 inay u soo dareertay doorasho ee maanta ilaahay nabad maaragtay iyo demokrasiya oo maanta baarlamaanka muxuu ahay commissionka laga hadlay inta voodoo la helay Nairobina waan arkaysaan wili iyadoo naga da'weyn iyadoo dawlad weyn ah iyadoo la aqoonsan yahay maxaa haysto waad arkaysaan marka waxaan idin leenahay example u noqdo dawladda Soomaali una duceeya anigu ma aaminsan liira Soomaali halilo dad walaalaan nahay uli diirkeedaan lahay hal wadan baan nahay siyaasadun baa lagu kala maqan yahay siyaasadaasna insha Allah ta'ala lakum diinukum wali diin walba meeshiisa ku dhaqan doona ugu duceeya ayagana inay idinku daydaan inay dhabaha qaadaan inay nabad keenaan masaakiintaana inay u nasteexayaan qaraxa ee maalin walba ay la beegsanayaan inuu ilaahay ka dulqaado idinkuna daydaan aqoonsina aad dhexdiina isu aqoonsataan inaad tihiin laba dal oo xor oo isla dhashay oo kala siyaasad ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan ku soo dhaweeyay iga raali ahaada waan iska soo daba dhacayaa samsam caydiisi ay kelmadeeda u tidhaahdo yaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسمسم عيدي دادن horta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta halka fadhida rag iyo dumarba waxa kale aan u hambalyeeynaa jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga kulmiye guushu gaaray madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siiraanyo Faysal Cali Waraabe iyo waxaan u kaloon hambalyeeynaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro waxaan leeyahay dhammaantiin isku duubni jiritaanka Soomaaliland baa wax kasta ka weyn inay jamhuuriyaddu jirto caruurteenu hay barwaaqo iyo badhaadha haystaan baa ka weyn isku duubni bari ilaa galbeed waxaan u rajaynayaa Soomaaliland meel kasta ay joogaan guul iyo gobonimo waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha cusub waxaan leeyahay madaxweyne ilaahay xilkaad qaaday ha kugu asturo ilaahay ha kugu asturo ummadda dhex u ahaw waxaan leeyahay xusbiyada mucaaradka ee Soomaaliland la shaqeeya madaxweynaha cusub iswada ag taaga madax dhaqameed dhalinyaro aqoon-yahan haween caruur isku duubni cadawgiina waxaad kaga guuleysanaysiin inaad isku duubnaataan ood mid ahaataan waan idin wada hambalyeeynaya waxa kale aan u hambalyeynayaa commissionka doorashada maamulayay 7 xubnood oo 7 xubnood oo aad Soomaaliland ugu qaaliya waxaan idin leeyahay hambaliyo shaqadaad qabateen ee aad iyo aad u wanaagsan Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay isku duubni culumowdiinka Soomaaliland waxaan leeyahay kaalintiina waad haysaane haya dadka idinka oo culumo ah idinka culumi caamiya labadaba idinka wada ah marka waxaan leeyahay insha Allah khayr baan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo waxa kale aan ka baaq uga dirayaa fariina dhammaan qurba joogta Soomaaliland ee ku mashquulsan qabyaaladda iyo kala fogeynta shacabkooda walaalaha ah inay ka daayaan dhibaatada iyo hadimada waxa kale oo ka codsanayaa walaalaha iyaga Soomaaliyeed ee jaarka iyaga ah
inay naga daayaan dibidaabyada iyo isku dirka ummadayada hay isku dirayaan ee social media la fadhiyaan cay iyo qabyaalad iyo isku dirid ay calanka wadani sitaan wadaniland la baxayaan waxaas oo dhan waxa sameynaya waa cadawga Soomaaliland reer Soomaaliland waxa leeyahay isku duubni meel kasto joogtaan waxaan aad iyo aad ugu sii hambalyeynaya gobolkan ka soo jeedo ee Gabiiley oo muujiyay xilkasnimo codka ku riday maantana si qurux badan iskugu soo baxay oo u dabaaldegay waxaan leeyahay guul gaar ahaan Maroodijeex iyo dhammaan Soomaaliland oo dhan aan ku soo dhaweeyay finally Saada Cabdi intaynan soo xidhin xafladda ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa marti sharafka halkan isugu timid rag iyo dumarba waxa kale oo aan hambalyo u dirayaa Somaliland madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo aan hambalyo u dirayaa madaxweynaheeni hore Maxamuud Axmed Siiraanyo iyo marwadiisa Aamina Waris iyagana waxaan leeyahay safar salaama khayr iyo bashbash idinkuna waad dhamaysateene iyaan idinku sii hambalyeynaa hambaliyo iyaanu leenahay iyagana qoyska kale ee imika inoo qabtay madaxweynenimada Muuse iyo xaaskiisana waan soo dhaweynaynaa Muuse hambaliyo xaasaskiisa waxaan hambalyo u dirayaa Somaliland sida quruxda badan ee qaayaha leh ee sharafta leh ee ay u qabsadeen hawshoodii ay isku maamuleen ay shacibkoodii iyo ciidankoodii iyo iyagoo dhan cuqaashoodiiba ay u dhan yihiin doorashadooda maasha Allah tabarakallah baan anaguna leenahay hambalyada waanu idinla qabnaa waanu idin hambalyeynaynaa waxa kaloon u dirayaa hambalyo gaara ciidanka qalabka sida oo aan iyagu habeen iyo dharaartoona aan harsan oon hadgelin oo dhibta dhulka ka taagan dhamaystira aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo xafladda uu inoo soo xidho gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Axmed Xaaji Cabdilaahi soo dhawo gudoomiye awal marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaanba intii soo qaban qaabisay xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee aynu caawa ugu dabaaldegayno guusha xusbiga kulmiye iyo madaxweynaha shanaad ee Somaliland waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Foosiye Caydiid oo runtii hawshan soo abaabushay iyo intii la shaqeynaysayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markaan intaa ka gudbo waxaan leeyahay jamhuuriyadda Somaliland waxay gaadhay guul taariikhiya oo caalamkoo dhani qiray oo meel walba laga hadlay waxay samaysay dimuqraadiyad aan Afrika ka dhicin oo aan ka dhicin caalamka la aqoonsan yahay dawladaha la aqoonsan yahay ee dhaqaalaha faraha badan la haysta aanay samayn ayay jamhuuriyadda Somaliland samaysay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabkii Somaliland ee dimuqraadiyadda runtii ballaaran ee runtii salka ballaaran leh soo bandhigay waqtigii campaign-ku socday 22kii cisho xusbiyada qaranka u soo baxayay ee u dabaaldegayay ee magaca Somaliland iyo runtii sumcadda Somaliland ba aad iyo aad kor ugu qaaday shacabka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin hawshiina waa gudateen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa musharaxiintii tartamaysay ee xusbiyada kala hogaaminaysay saddexdii musharax iyo saddexdoodii madaxweyne ku-xigeenba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii guul taariikhiya ayay Somaliland u soo hooyeen bisayl badan oo siyaasadeed ayay muujiyeen way tartameen tartanka ninunbaa ku soo bixi lahaa kursiguna ninbuu deeqaa waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xusbiga kulmiye ee runtii guusha dhaliyey intii codaysay iyo intii la shaqaynaysay iyo intii qabanqaabinaysayba ee soo saaray madaxweynihii shanaad ee Somaliland Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo runtii ah nin qarankan ku qaaliya oo halgamo fara badan oo dib u dhiskiisii iyo halgankii xoreyntiisaba ka soo qaab qaatay maanta haddaynu Muuse kursiga ku hubsannay waxaan leeyahay taageerayaasha xusbiga kulmiye waynu ladaynaa waynu seexanaynaa taladeennii
iyo tusmadeeniiba waxaynu u dhiibanay cid ka midha dhalin karaysaa mujaahid musabixi waxaan halkan ugu ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaa laguu dhiibay ee laguu igmaday waxaannu rajaynaynaa taariikhdii xusbiga kulmiye iyo legasigii 7 sannadood uu ka tegey mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo runtii ahaa macallinkaagii siyaasadda oo aad adiguba qirtay halkii uu kaga tegey inaad ka sii qaaddo oo guul aan runtii somalilan la qiyaasi karin aad gaadhsiiso 5 sannadood ee soo socota muuse maanta waynu arkaynay khudbaddiisii ugu horraysay runtii si wanaagsan oo gobonnimo leh oo waayeelnimo leh oo madaxweynenimo leh oo dadku u qushuucay ayuu runtii maanta u hadlay waananu ka filaynay waxaan rajaynayaa muuse inta inaga dhiman iyo ictiraafka iminka aqoonsigii baa inaga dhiman innagu waynu is aqoonsannahay laakiin kii caalamiga ahaa insha allahu bismillaahi kariim madaxweynaha ku guulaysta inuu noqdo bayn runtii ayaan runtii jecelahay waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaashii xusbiyada iyo musharaxiintii inala tartamay tartanku wuxuu leeyahay xurgufo fara badan xagtimo fara badan buu leeyahay doorashada xumad bay leedahay waxaan horta aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiye faysal cali waraabe oo runtii aan odhan karo waa taariikh somalilan leedahay oo aan horrayse iyo dambeetaba la dafiri karin oo xaqaa'iqa mujaahid faysal waxaan leeyahay guddoomiye faysal taariikhdaa ku qortay halkaad qaranka kaga jirtana waa la ogyahay mujaahidka somalilan baa tahay waxaan isagana runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa musharaxii xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo runtii muujiyey runtii daljacayl iyo dadjacayl oo najiidadii runtii ku qancay kama dambaysta ahayd oo runtii yidhi waxaan u turayaa qaranka somalilan aad iyo aad baan cabdiraxmaanna waxaan leeyahay waad mahadsan tahay somalilan runtii maaha dal buuq ka dhalan karo waa dad isu tanaasila waa dad marxalado badan oo runtii adag ka soo gudbay tan maantana inaynu ka gudubnay adduun weynaha iyo cid waliba way qiraysaa waxay runtii guushaasu ku suntan tahay oo runtii gaar isaga leh madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee tartankaa qabtay ee iyadoo doorkiisii labaad ay tahay ka tanaasilay ee siidhiga u qabtay 3dii musharaxee tartamayey ee nabadgelyada ilaaliyey ta guud iyo ta gaar ahaaneedba ilaaliyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan leeyahay taariikhdaa ku qori doonta somalilan kuma iloobi doonto waxaa tahay madaxweynihii nabadda waxaa tahay madaxweynihii somalilan mideeyey bari ilaa galbeed waxaa tahay madaxweynihii runtii horumarka qaranka somalilan wuu ku xasuusan doonaa xusbiga kulmiyana runtii waxaa tahay buddigihiisii 100 sannadood inay taariikhdaadii jirto ayaannu runtii jecellahay waxaan ku soo gebagabaynayaa caawa xafladdanu dee waa xaflad yaroo celebration oo hambalyaa laakiinse waxaan u sheegayaa shacabweynaha somalilan iyo taageerayaasha xusbiga kulmiye meel kastoo ay joogaanba inaannu xafladdii weynayd ee guusha ee caleemasaarka ee waxaan leeyahay guusha xusbiga kulmiye aanu qaban doonno sida ugu dhaqsaha badan leh aanad runtii ka arki doontaan miidiyaha xafladdaa waxaan leeyahay ha laga soo qayb galo waa xafladdii guushan xusbiga kulmiye keenay dad badan baa ku soo tabcay oo qurbajoog iyo qolqoljoogba dadkaas waxaan runtii aan aad iyo aad ugaga mahadnaqayaa sidii ay u adkaysteen iyo sidii ay guusha u keeneen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay muuse biixi cabdi ilaahay xilka ha kugu asturo xusbiga kulmiyana waxaan leeyahay guul aad iyo aad buu runtii guddoomiye mahadsan yahay xafladda waynu soo xidhay